السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدحتونكي بيش كويتونات كون أفر بقول أفرتن تدوكو بيغان صدنكي بيشي أفراد لو يكون لواتن إيه لحدة وردقدق نسوق جارة أي شيء غاية ururka heerka khatarta ee argixisada oo loo qaaday Safia heer khatarta ee argixisada ee boqortooyada Ingiriiska boqortooyada midowday ee UK ayaa loo kordhiyay Safia taas oo ka dhigan in weerarka argixisada aad u kordhaya 6 bilood oo soo socota hay'adaha Joint Terrorism Analysis Center taas ka digeen in weerarka argixisada uu aad u suurtagal yahay 6 bilood ee soo socota hay'adda Joint Terrorism Analysis Center ayaa sheegay in kor u qaadistaanka aysan ku xirneen in ay sheegtay kor u qaadistaan ay ku xirneen weerarkii Golder Green oo kaliya balse khatarta ay sii kordhayso muddadii hore dadka la dhaawacay waxay ahaayeen 2 qof mid waxay jirtay 34 jir oo lagu magacaabo Shalon Rand ayaa sheegtay waxaan dareemayaa in Ilaahay nolosha ii soo celiyay tan labaadna waxay ahayd Motion Shine oo 76 jir ah iyadoo Rand iyo labadaba la weeraray booliiska ayaa dhacdadan u qoonsaday weerar argagixiso eedeysanaha ninka dhaawac geysta waa wiil Soomaali ah oo jiro 45 jir laguna magacaabo Suleymaan Ciise Suleymaan wuxuu ku nool yahay koonfurta bari ee London waxa uu UK yimid 1990s isagoo ka yimid Soomaaliya waxa hore loogu eedeeyay barnaamijkii Prevent 2020 oo lagula socon jiray xagjirnimada waxaa ka dhacay goobta CCTV ayaa muujisay qof oo dad weeraraya booliiska ayaa teesar ku qabtay kadibna xiray dadka deegaanka qaarkood waxay sheegayaan in xaaladda cabsi ay tahay falanqeyn falcelin hogaamiyaasha ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer iyo madaxda kale waxay sheegeen in booliiska la kordhin doono in la ilaalin doono bulshada Yuhuudda in nacaybka la yareyn doono antisemitism si degdeg loo dagaalamayaasha walaalay waxaan rabaa inta kusoo gabagabeeyo si adag loola dagaalami doono waa wiil Soomaali ah oo weeraray dad Yuhuud ah oo duq 76 jir iyo gabar ayadana jirto 34 jir ah ku weeraray mindi markii dambe booliiska sensor ku qabtay xirayna markaas marka walaalay waxaan halkan qodob oo degdeg na soo gaaray ina inga dabageeyo de wixii ku soo kordhan oo arkayna waxay kale booliiska iyo ra'iisul wasaaraha ay sheegeen in la kordhin doono ciidamada ilaalin doona xarumaha Yuhuudda sida safaaradda sida qonsulka sida magaranaysa meelaha isku imaadaan oo kale adi dabcan al-umum in la ilaalin doono kulli oo arkayna wixii ku soo khatartan waxay leeyihiin way ziyaadi doontaa ay leeyihiin waxa oo saadaalin ama magaranaysa ay analyze ku sameeyaan marka oo arkayna wixii soo kordho وإن سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.